bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee TV-ga Somali Cable aan ku bilaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kulan la qaatay mas'uuliyiinta hay'adaha amniga ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr ayaa gudoominayay kulan looga hadlayay amniga caasimadda oo lagu qabtay taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir kulanka ay ka soo qayb galeen wasiirka amniga gudaha gudoomiyaha gobolka Banaadir taliyaha ciidanka iyo khubaro amniga ayaa diiradda lagu saarayay dardargelinta iyo kamera dhalida qorshaha sugidda amniga dalka gaar ahaan amniga caasimadda afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankaasi amniga shirkan runtii wuxuu ahaa mid ay ka soo wada qayb galeen dhammaan qaybaha kala gedisan ee laamaha ammaanka oo ay ugu horeeyeen wasaaradda amniga taliska ciidanka booliska ee gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir uu hogaaminayay duqa magaalada Muqdisho iyo madax ka socotay xafiiska ra'iisul wasaarahana runtii shirkan wuxuu u shir gudoominayay sidii loo dardargelin lahaa amniga caasimadda magaalada Muqdisho iyadoo aanu ognahay maalmihii u dambeeyay in ay socotay barnaamij lasla dhaxgelinayay shacabka iyo qaybaha kala gedisan laamaha amniga iyadoona nambarka 991 uu ra'iisul wasaaraha muddooyinka ugu dambeeyay xoogga saarayay sidii ay shacabku ula soo xiriiri lahaayeen qaybaha amniga isla markaana ugu wargelin lahaayeen wax walba ay u arkaan in uu amni darro ku yahay magaaladan caasimadda ee Muqdisho iyadoona qaybaha kala gedisan ee amniga ay u suura gashay in falal fara badan oo amniga liddi ku ah ay ka hortagaan iyagoo shacabka kaashanaya runtii shirkan wuxuu ahaa mid lagu sii dardargelinayay qaybahaasi kala gedisan ra'iisul wasaarahana uu u gol lahaa sidii ilaamaha amniga maamulka gobolka Banaadir iyo shacabkaba ay wada shaqeyn dhab ah oo buuxda ay u wada yeelan lahaayeen doorasho nooca ah ayaa ka dhici doonta Jubbaland dhawaan ayaa la filayaa in doorasho ay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland musharaxiinta u taagan xilkaasi ayaa ku sii qulqulaya deegaanada Jubbaland iyagoo halka ka bilaabaya ololaha musharaxnimadooda mas'uuliyiinta Jubbaland ayaa sheegay in ay doonayaan in doorashada ay si nabadgelyo ah ay ku dhacdo Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo amniga ayaa soo jeediyay talooyin ku saabsan doorashadaasi dhawaan waxa doorasho ka dhici doonta Kismaayo Soomaaliya waxa hortaala marka sida soo socota marka Soomaaliya ma waxaad rabtiin in Kismaayo laga qabto doorashadii uu madaxweyne Cabduuli Gaas oo ka qabtay Puntland ama oo ku qabtay Garowe miyaad rabtiin mise Soomaaliya in laga qabto Baydhabo in laga qabto Kismaayo mise Soomaalidu waxay rabaan in Kismaayo laga qabto doorasho u dhiganta doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qabtay Baydhabo haddii Soomaalidu rabaan in doorashada oo ka qabtay Farmaajo Baydhabo laga qabto Kismaayo haddii waa arrin Soomaali u tahay laakiin anigu kuma jiro sababtu waxay tahay waxay ka soo horjeedaa aqliga iyo aqoonta iyo wax ka soo horjeedaa dawladnimada waxa ku soo haray ninka la dhaho mudane madaxweyne Axmed Madoobe oo Kismaayo madaxweyne ka ah asagana waxaan weydiinaynaa oo leenahay mudane Axmed Madoobe Kismaayo ma waxaad rabtaa inaad ka qabatid doorashadii saaxiibka Cabduuli Gaas oo ka qabtay mataqaana Garowe oo markii ay natiijadu dhacdo aad ogolaatid hadii laga hela inaad ogolaatid in laga adkaaday hadii lagu codeeyana waxba kama qabin in lagu codeeyo laakiin waa inay ahaataa midaan u jeedino oo doorashadii lagu dooranayay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani maalintii waxaan fiirinayay telefishinada Soomaalida oo tibinayay 17 telefishin oo Soomaaliya ayaa tibinay oo live ah marka mudane Axmed Madoobe ma wuxuu rabaa inuu noo qabto doorashadii oo noo qabtay mudane madaxweyne Cabduuli Gaas oo kale timir rabaa inuu noo qabto mise wuxuu rabaa inuu noo qabto doorashadii mudane madaxweyne Farmaajo oo Baydhabo ka qabtay Axmed Madoobe waxaan u sheegaynaa Soomaali waxay ka rabtaa inaad qabatid doorashadii oo mudane Cabduuli Gaas oo ka qabtay Garowe qof ka yeelayna ma jiro inaad ka qabatid Kismaayo doorashadii oo ka qabtay mudane Farmaajo Baydhabo taas mabda oo asal ah
saas horta marka xoraba in la aqbalo xildhibaan ka tirsan maamulka galmudug ayaa waxa uu ka warbixiyay sababta maamulkaasi uu laba garab u kala noqday xildhibaan cabdirasaaq sheekh maxamed ilkadahab oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa wareysi uu siiyay TV-ga Somali Cable waxa uu kaga hadlay caqabadaha ku horgudban maamulka galmudug maamulkaasi ayaa hadda u muuqda mid u kala jaban laba garab oo fadhigoodu yahay Cadaado iyo Dhuusamareeb xildhibaan cabdirasaaq ayaa ka hadlay waxyaabaha khilaafka keenay waxa sabab u ahay in galmudug Cadaado iyo Dhuusamareeb ay kala naqato dana siyaasadeed sababtoo ah dadku waxay raali ku wada ahaayeen in caasimadda dawladdu ay joogto waxay raali ku wada ahaayeen in ciidamadii la mideeyo in khilaafyadii la yareeyo in dhulalkii aan nidaamku gaarsiin nidaamka la gaarsiiyo cid kasta taas way jecleen laakiin waxaad u qabtaa in dana siyaasadeed oo qof kasta sidii ay rabtay inay wax ku hogaamido inay meesha ay ka weydeen gaar ahaanna dawladda dhexe iyo maamulka galmudug in isfahmi waayeen wasaaradda arrimaha gudaha kale hadda sharciyadan ay soo saartay aqoonsiyo badan oo shaqo badan ay ku leedahay maamul goboleedyada laakiin hadda way iyadu xoog saarayaan bas dhinaca siyaasadda bas xoog saarayaan laakiin dhinaca arrimaha bulshada dib u heshiisiintii iyo xataa galmudug markay isqabtaan inay waxa official oo saxda ah oo ay tahay in dawladdu la shaqeeydo inay tilmaamaan maysan sameeynin marka waxaad u arkay inay inqilaafkaas lagu koriyay ummadda galmudug dhexdeeda in lagu koriyay khilaafkaas si loo gaaro xilli la dhihi karo marka doorashada la aado marka doorashadu ma qabsoomi karto iyadoo khilaafka noocan u jiro haday qabsoontana waa roob awood badan oo aan wax miraana soo dhalinaynin oo naqana guud ahaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa warkii koobnaa ee aad ka daawanayseen TV-ga Somali Cable inta warka xiga aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ramadaanul kariim مدينة مول دسمة آدم مقوين وكسمة المرايد مقال كيسو قرحون لقو أرق مقالة دسمة ويا مقوين وما شاء الله ككوان وحك استاد مهانيسو مقاحيات كعون تيسيو مساجد كو حيالا ميد كلايتانو هو يقولولك واميد واسع مروض هذا أرس مالمات كده كينين ما دادي سكاليتو واحد دونتو مركي وعدون ميل كلا آدم سوبر ماركت مقوين باميشي كو حيالا يمرنا يوسن كسيجين مدينة مول وادسمة ككوان سيداد دبا قولو دسي قاب قروح بدن وحانا كو يالا الدكان مقاريا إنك بدن لحدن دكان حفيسيو مقاحيلي عن